السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaad furfuraysaa waraaqo fara badan oo arkay kolba geesaad rogayso. niyo هو warqadahan iyo qalinkanba shaqo badan bay hayaan haye horta maamahada ma maqashay baaniyaal baahdi buugiisii ku noqdaa dib u baarbara cid yaa deyn ku lahayd wardiyo ya assalaamu calaykum marka hore saaxiibayaal waxaan inoo wadaa mid ka mid ah xujooyinkii cajiibka ahaa ee dadkeena Soomaaliyeed ay maskax ahaan iyo cilmi ahaan ay u fadhiyeen sheeko qatara oo ku saabsan hadal sarbeeba oo la isweydaarsanayo iyo qiso dhex martay aabihii wiilkiisa cilmiga u diray inuu diinta u soo barto iyo tuugadii wax kala dhex qabsaday may la socotaa maxaa sheekadaas doonay inaan uga dhaco sheekadan waa sheeko caam ah oo Soomaalida oo dhan meel kasta ay joogto caan ay ku tahay ma sha Allah haye marka waxaan rabaa sheekadaas in aad la socdo hadda ka hor marka tanan waan ururinay marka xogtan ururinay maxamedow xogtan ururinay sax xogtu waxay ahayd laga yaabaa in siyaabo kala duwan ay ku soo gaartay sheekada iyo habwarinteeda marba wax modified marba wax laga beddelay laakiin sida ugu cajiibsan ayaan sheekadan u sheegi doonaa oo inta badan ee caanka ku tahay waxa la yiri waagii hore diinteena islaamka ee macaani hadda meel walba inoo taala marka hore barashadeeda iyo helisteeda aad bay ugu dib ugu ahayd dadka Soomaaliyeed qaasatan dadka miyiga ama tuulooyinka degan safar dheer baa loo gali jiray si loo barto diinta marka oday ayaa wiil u dhalay odaygaasi waxa oday aad u xigmad badan oo aqli badan ayuu ahaa marka wuxuu ku tarbiyay ilmihiisii yaraa erayada sarbeebta ah wax isdhaafsiga wax kasta cilmi ahaan ayuu u baray wiilka markuu weynaaday ayuu marka si uu diinta u soo barto wuxuu u diray tuulo fog oo dhowr maalmood dhax loo sii dhaxo 5 caana maal marka lagu yiraahdo kale maxamed taqaan soo ma 5 caana maal marka lagu leeyahay kale waa shan waqti tuulo fog ayay ahayd adiga tan tusaale iga ahayd caana maalkeed waxa dhacday marka wiilkii wuu baxay diintiis wiilkii gaaja meesha ku qaban wuu rafaaday intuu diinta baranay marka wayna kala fog yihiin hadduu doono inuu soo baxana cilmiga ma dooni inuu ka tago dad wax siina ma haysta maalin buu wuxuu la kulmay safar dad uu garanayo oo tuuladii uu ka yimid u socda markaas ku war hebel baan ahaa way garteen wiilku wax ka baranayaa wuxuu yiri aabahay fariintan iga gaarsiiya haye maxaan ka gaarsiina wuxuu yiri anigu waan fiicanahay alxamdulillah balaayi ma jirto waxaad u sheegtaan sheekada halkan ka bilaabmaysaa daawade sheekada halkan ka bilaabmaysaa la soco wiilka erigiisa la soco wuxuu yiri waxaad u sheegtaan aabahay 5 salaadood wayse qura ayaan ku tukadaa waa koow marka inta iga gaarsiin ma sha Allah iyaga waxay dhahay warni fiican baad ma subaxi ilaa habeenkii ma sha Allah warni wanaagsan baad ka gaarsiinayna soo baxay way yimaadeen aabihi u yimaadeen waxay yiraahdeen hebelo wiilkaagan soo aragnay haye barsoo aha wallahi wuu iska fiicnaa wiilkii nin ma sha Allah salaada kaale arag haye wax fariina mid soo faray wuxuu soo yiri 5 salaadood wayse qura ayaan ku tukadaa hal waysan ku tukadaa aabahay inta iga gaarsiiya ma sha Allah wuu fi ilaahay ha u barakay insha Allah markaad noqonaysaan isoo mara wiilkaygi waxba idinku dhiibay ma sha Allah isla markiiba aabihi wuu fahmay muxuu ka waday hadaba wuxuu ka waday 5 salaadood hal waysan ku tukadaa wuxuu ka waday maalintii oo dhan hal mar wax cuna aabo waa gaajaysan oo rafaadsan iyaguna maxay u qaateen ninkaas salaadii caadiga ahayd ayay u qaateen markay noqonayeen soo mareen waxay ku yiraahdeen haye hebelow waa soconaa wiilkaagii meeshii uu tuuladii uu joogay wax ka baranayay ayaan u soconaa maxaad noo dhiibaysaa wuxuu yiri diyaar way sii ogeysiiyeen kadib wuxuu sameeyay waagii hore xitaa weelasha wax lagu qaato waxay ahayd wax dhulka ka baxa oo Ilaahay u beero hadda ubada oo kale qumbo
iyo ubbo waa wax dhulka ka baxa oo sida caaga iyo jooga ama jeega ama wax meel lagu shubtay ahaan jireen. haddoo kale waxaa la isticmaalaa caagaga soo maaha, caagaas saddex qaadka oo kale iyo oo saliidii lagu keeno. waagii hore qumbo baha la yiraahdo oo bahasha ubbada ah, yani waa dhulka wax ka baxa, waa geed dhulka ka baxa oo meelaha qaar waxa looga yaqaanaa bocorkan weynaaday oo kale, bocor meelaha qaar looga yaqaanaa deegaanada qaar. ayuu wuxuu ugu shubay odagii wiilkii subag ayuu ugu shubay, qumbihii oo subag ah oo buuxa ayuu ugu shubay. hilibna solay dad badan oo yaqaana dadkii hore dhan, laakiin solay dadka qaar waxa laga yaabaa inay ereygaas ku cusubtay. hilib la solayna 30 hilib ah oo u solayna wuxuu ugu shubay weel ugu riday isna. marka solayga waa maxay? solaygu waa hilibka la dubo. ya hilibka la dubo ya maxamedow waa foornadii hore oo kale waa hilibka la foorneeyay ya foornama jirin barigaas waaga foornamadu waa la dubay hilib la solay baa markaa la meelaha qaar luqadaha qala barbecue ya you know barbecue some of the people barbecue yani 30 xabo ya al fornato 30 hilib ah ayuu ugu weel ugu riday uu xiray subagiin qumbihiina wuxuu ugu xiray ugu dhiibay soo buuxa. marka uu la dardaarmo wuxuu yiri alxamdulillah wiilkaygii ugu salaama, ma sha Allah reerku way fiican yihiin, waa la barwaaqaysan yahay, xageena bishu waa 30 balligana waa buuxa. wiilkii inta gaarsiiya alxamdulillah ilaaha noo gargaaray ya inta guntu yiri meel socota daawad xageena anaga reerku way fiican yihiin, way nabad qabaan, way wanaagsan yihiin. haye bishu waa 30 balligana wuu buuxa alxamdulillah balaa ma jirto. way iska tageen. laba nin ay ahayn markay dhex sii marayaan ayaa waxay siraadeen war odaygan wuxuu u soo dhiibay udgoonkan iyo caraftan ka soo baxaysa ya urtan ka soo baxaysa meesha udgoon ya hilibki niyo ma u qanjiirina xogaa ya odayga maxamedow ma u qanjiirina wala tusmeesha marka subagana ma ku dhuuqna wallahi waaya. marka meesha hilibka 30 xaba ahayd ayay 6 xaba ka cuneen. subagan inta wax ka shubtayna ku dhuuqeen macaan badana waxaadan lahayn asal ugu diyaariyay. kowde sheekadii saasoo ku dhamaatay. wiilkii ayay u tageen, waa soo gabagabeynay raaliyadeedu ka dheeray. wiilkii marka loo tagay waxaa la yidhi haye waa kan aabbaha intana kuu soo dhiibay. wuxuu yidhi wax fariina ma idin soo faray aabbahe يعني فرين ما إذا سو ديبي أو ويل كي وشك معير الحمد لله رير كوي برواقي سيهين هي بشو هي وصدم هي بلغنا وبوحا ويل كو فيري أفري لبعتن حبوه هلي بكو جرماش صبقينا هاف وحبا كمغان وشوبيه وحو لجي مركز شاكد وحي هي بلغ وبوحا يعني قنبه وكب بلغوا marka waa subagu ka hadlaya subagu waa buuxa ha bishu waa 30 wuxuu ka wada 30 hilibon ku soo dhiibay. xigmada ka war xigmadu wiilkiis ilaa waa abi wax baray wiilku wuxuu yiri salaamu calaykum li xabo hilibna way maqan tahay subagar barbaa maqan hallaysi waxay hadii kale maxkamad war ma waalad waa maxkamad yiri la qoort araal marka dab xaqada araal ahaada niyo aniga ugu maqan tahay lixdii anaga ugu maqan tahay subagii niyo waa ku xisaabinayna waxaaga qiimayso hanana sheegin. marka wiilka sidiisa wixiisa lagu siiyay. marka xigmadda ku jirta sheekada maxay tahay? xigmadda ku jirta waxay tahay fiiri habka wax la isugu gudbinay eeg dadkeenii hore aqliga iyo maskaxda la adeegsanayay eeg iyo hatta sidaynu nahay qaabkan u fikirayno. hadda taayilga telefoon ma jiro, hadda telefoon ma jiro oo qoraal meel wax lagu qoraa ma jiro oo wax la qorqoro ma jiro oo hadduu ilaahay ku roon yahay wax la iska arkaa ma jiro. wax kasta waxay ahaayeen xigmad iyo aqli iyo maskax. eray waraadka la garanay raadkaas waa in hebel ayaa la dhihi jiray ka waraadka qofka. marka sheekada waxa soo qaatay aynu baranno waxa aan dhaqankay xigmadaha u leenahay oo anaga aan isticmaalno dadkeenan hadda jooga generationkan hadda nool. waxaan rabnaa wax aan u reebno generationkeena dambe. maxaan u reebaynaa hadda anaga waxaan ka sheekaynaynaa sheekooyinkii hore ee wanaagsanaa ee fiicnaa iyo hadalladii xigmadda lahaa,
laakiin kuwa hadda waxa ay reebaan maxay noqon doontaa kuwa daba jiilka daba maxay jiilka kale uga sheekayn doonaan aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal waa saaxiibkii Siciid Xagaa oo idin leh wax fiican ka tag wanaag iyo khayr iyo sharaf aad ku noolaatid dadkaagana ha helaan waa saaxiibkay Maxamed Owaadan iyo saaxiibkii Siciid Xagaa oo idin leh sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sharaf korkiina haato